nin ingiriisa wuxuu qoray maqaal uu leeyahay ninka imaaraadku ay ku dhex abuurteen Suudaan oo beenta ka sheegay islaamka waa nin ingiriisa quraan muslim ahayn journal Mareykan uu leeyahay oo buu ku soo baxay raggaas waxay qoreen 2012 buug ay dawladda Suudaan siiyeen oo ay leeyihiin dadkan muslimiinta wadanka dhib ku haya magaca ku yaala waa magacayga aniga magacayga iyo nin muslina oo wadanka Morocco u dhashay oo reer Suudaan ah labadayda magacooda ku yaala ninkana ugu halisan waa ninka wadankan caruurta ku sameeyo wixii kaas uu jiray waan ogaa laakiin waxa macno uu ku fadhiyay ma jirin wax tuhuna iyo wax eedayna igu taala ma jiro buuga waxa ku taala ninka iskoolada ugu weyn ee islaamiga ee waqooyiga Yurub hogaamiya waa nin mataqaana halis ah waxa soo qoraya waxa ku xigta oo la yaab leh oo aad la yaab u leh ninka markuu qoray waxay su'aalay ma jirin laakiin hoosta shaqo ka bilaabeen oo sir ah waana ogeyn oo xaq loo siiyay maxkamadda isagoo xaq u siisay inay computerkayga dhex galaan inay gaarigayga qalab ku rakibtaan inay microphone ku rakibtaan inay wax kasta sameeyaan wax kasta loo ogolaaday ila emailkayga inay jabsadaan SMS-kayga inay jabsadaan telefoonadayda inay dhageystaan wixii oo dhan way sameeyeen iyaga qoraya waxay qorayaan 79500 email inay iga jabsadeen account-kayga iskuulka account-ki bankigana 56400 inay ka jabsadeen 8000 oo dhageysi ay dhageysteen 15000 SMS ay qaateen af Soomaaliga loo turjumay af Swedish Carabiga loo turjumay af Swedish Ingiriiska waxaan ku qorqoray loo turjumay af Swedish dabadeedna ay leeyihiin waan ka weyn hal shay oo aan maxkamad ku taagno oo aan argagixiso terrorist kaga dhigno ku weyn iyaga qoraya laakiin dhibaatada dhacday waxa weey dokumentiga iyagoo ay qoreen xiraalihii uu qariyay hoos u dhigay cidna ma tusin uu qariyay waa la dib dhigay 52 nin baa la daba dhigtay 52 nin gaari bay la qaataan waa la daba socdaa meeshan baanka dhigaa la ila dhigtaa meeshan maraa la ila maraa wadankan u dhoofaa la ila taga diyaaradan raacayo way la joogaan waxa ay raqiib iyo catiidba ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu samaystay ilaahay quraanka ilaahay wuxuu ku leeyahay wama ursilu alayhim xaafidiin ilaahay wuxuu leeyahay shaqada malaa'ig baan u dirsanay cid uma aan dirsan Umar ibn Khattab baa nin daba galay markaas inta uu sheegay moogta marka waxay noqotay wax la yaab leh konton iyo 2 nin maal baa ku baxay khasaara kaga dhacday way ku khasaareen waxa la yiri sidaan yaana ku daynina kharaj baa baxee wax un hal alifo maalgelinta markaan bangiga sameynayno maalkii dadkiina halkan fadhiya ururiyay waad ogtiin in badan oo kamid ah maalkii ururiyay reer Norway baa ururiyay reer Ingiriis baa ka soo qayb galay reer maxay hayto Soomaaliya ka qayb gatay bangiga lacagtiina ururinay markaan soo dhameyn in waxa dhimanaatay 1 milyan oo euro wax u dhow 10 milyan oo koron iskuulka account-kiisa waxa noogu jira 16 milyan iyo 500,000 oo faa'iido ah ya adigu 1 milyan iyo 700,000 oo euro baa ku jirta oo faa'iido ah marka waxaan niri 10 milyan oo bangiga iskuul ku jirta hal lagu daro marka bangigaan oo dhan shaqadiisa oo iskuulka inuu badbaadiyo wax kale ma way og yihiin way la socdaan sirta oo dhan bay sameeyeen wax kasta ila baareen waxay qorayaan wax kasta xitaa Dubai markaan tago Likis Hotel madago maxay ahayd hoteelada wuxuu dhex degaa xaafadda muslimiinta masjid u dhow maqaayada hindiyo cuntada ka cuna waxa yira gaarigayga markii la soo wax lagu dhegsiyo gaari yar oo 5,000 oo corona way ma garanay ninka maal qabeenka wuxuu gaarigan u wado iyaga qorayo kuwa loo yidiray inay daba galaan gaari kale iskuulka ana minibus caruurta lagu geeyay maxay tan uu wataa gaari private wato Lix ma jiro Lix bill iyaga qorayo xiraalyaha hadalka baa ka soo baxsaday afkeeda maxkamadii waxay tiri ninkan ha lagu xukumo hadalkan idin sheegay oo ahaa ninkan waa halis intaasuu 2 gacmood oo maran buu wadanka la yimid waxaas ay leedahay laakiin waxay ku daraysaa waxaan doonayaa in lagu xukumo 8 sanadood oo uusan mas'uuliyad qaadi karin shirkadna asaasi karin Nargis Furbood 8 sano sababtoo ah hadduu inta liqo markuu inta wixii ka soo haray uu weynaanayo nashaadkaanu maanta ay maanka marka wax ma samayn karo looyaradii mid kamid ah yaa intan qaday wuxuu yiri
ma inuu wax sameeyaa adiga dhibka aad u haysato uu yahay mise inuu sharciga uu khaldo markaasay tiri iga raali noqda si khaldan baan u hadlay sharciga inuu khaldoon baa diidaya laakiin warkii saxda wuxuu ka soo baxay wadnaha qorshahooda marka waxay ugu yiraahdeen keli baan ahaa 8 bilood iyo 14 maalmood waxaan ku jiray qol keliga 23 saacadood maalintii la fadhiyo marka saacad baa la soo baxaya burumanaad ay u bixiyeen 23 kale waxaad ku jiraysaa qol iska qadar Allah ma shaa facala marka waxay yiraahdeen waa lagu xirayaa sanado badan baa lagu xirayaa hanjabaad iyo caga jugleyn wax macna ku fadhiin anna waa qoslay waxay bixiyeen dangalada kilaba ay bixiyeen anna waxa ku dhaha kilaba waxaan ay oday ninkii faraxsana waa salaama subax waxay dhaan ma xanuunsan tahay psychology ma rabtaa ma waxaan ana psychology idin noqonay ma doonaysaa inaad isdisho ma ka fakaraysaa inaad isdisho maxay tahay inta lagu silciyaa lagu leeyahay inaad isdisho ma doonaysaa ma ka fakar inaad isdisho mayaan ku iraahdaa waa xaraan weeye inaad isdilo inaan noolaadaan doonaya oo soo baxo shaqo qabto marka iyaga carooda marka waxay yiraahdeen markay inta waxyaalahaas oo dhan sameynayeen markii maskaxda weerar maskaxda waa lagu xirayaa intaas sanadood maxay tahay wax lagu ogolaan doono deyn baa lagu gelinayaa corona fog damidgeeta baa deyn ku gelinaysa saadan dhaqaale iyo hanti u yeelan waxaad lahayd oo dhan mooradug baa lagu sameynayaa dadkii muslimka oo lacagta maal gashaday bangiga kulli waa la dhacaya waa la qaadanaya caruurtaada banaanka lagu daadinaya aqalka laga saaraya markaad soo baxdo shaqada ku taal waxay noqonaysaa naftaadii iyo caruurtaadii inaad badbaadiso waxaan ku iri waxaas oo dhan waa wax awood aad u leedin gacantiina ku jira laakiin inay fulaan ilaahay gacantiisa ku jiraan inay fulaan idinku waad oran kartaan laakiin ilaahay gacantiisa ku jiraan waad garatay waxaan iraahdaa annagu waxaan irahnaa baan diinta waxay leedahay al-abdu fi tafkiir wallahu fi tadbir adoonku inuu qorshe dejiyo uu leeyahay laakiin inuu fuliyo ilaah baa leh maalintii la qabtay gacanta la igu dhigay ilaa maalintii la soo deynayay waxyaalaha aadka muhiimka ah waxay ahayd inaan ogaado waxa xuquuq aan leeyahay iyo waxa waajibaad oo saaran sharciga wadanka isu dhan oo lagu xukumayo waxa aad la yaab u lahayd inaan sharciga la tixgelin dhinac la iska dhigay ee sharci darro lagu la dhaqmay markaan iraahdo sharcigeena sidaas ku taalana waxa la yiraahdaa waxaan anagu rabnaa sharci oo cad marka xabsiga galo ugu horeysay waxay ku yiraahdeen xabsiga ma soo gashay hadda ka hor khibrad ma leedahay maya warqad bay siiyeen bog waxa ku yaala xuquuqdaada bogna waxa ku yaala waajibaadka ku saaran waajibkan ka bilaabay waajibaadkii waan fiiriyay oo midaan ka soo wada bixi karo shidaygu ma hayso alxamdulillaah rabbil caalamiin xuquuqdii baan fiiriyay xuquuqdii waxaan iri way fiican tahay marka maxay iri xaqaan doonayaa in la iyo ogolaada salaadaydii waxaan iri waxaan doonayaa inaan sijaayad la isiyo kitaab quraana maya wali diiday sijaayadii salaada wali diiday kitaabka quraanka wali diiday waxa ku taala inaad la kulmi karto imaam ama qays la kulmi karto ama raahib ama qisiis wadaad kristaan inaad la kulmi karto ama muslim ama yahuuda wuxuu doonaa noqdo waxaan doonayaa imaamka inaan la kulmo waxaan doonayaa sijaayadii kitaab quraan inaan weydiiyo iyo jadwalka salaada may saacad lama ogola TV ma jiro journal ma jiro radio ma jiro cid wax ma lama ogola sijaayad ma jiro kitaab quraan ma jiro sharciga leeseen waxa ku taal xaq inaan leeyahay sijaayadeedii inaan helo kitaabka quraanka inaan helo laakiin lama tixgelin maalintaas waxaan ku bilaabay ilaa maalintan ka soo baxay ugu dambeysay hal hadal inaan ku iraahdo adigu waad xukumaysaa waxaad leedahay sharci baad jabisay saasa la xukumayaa Soomaha adigana xukumaya sharciga inaad tixgeliso raali diyaar ma u tahay maxaad doonaysaa sheeg waxaad doonayso sharciga raac kaliya ma raacayo mana fulinayo waxa anigu rabaa sharci ah saasa lagu la dhaqmay marka waxaan iraahdaa meeyay marka sharcigii aad u hoggaansamayso aad leedahay dadka aan ku fuliyo marka waxa muhiim ah in sharciga adigii dadka ku fulinaya aad sharcigii raacdo sida macallinku inuu isaga wax barta ay u tahay inuu isaga wax barto ardayga wax baro laakiin sidii maaha marka waxa aad la yaab u noqotay dawladdii xorriyadeedii dimuqraadiyadeeda qiimaheedii oo dhan inay dhinac iska dhigtay marka qof xumaynaysa shacab ah muwaadin
miskiina oo shacabkii dadkii ka mid ah inay markii la dhaqmayaan ay yidhaahdaan sharciga ma raacayno, sharciga dhinac baan iska dhigaynaa. arrintaas waxay noqotay arrin la yaab leh.